وعنا wanaagsan idilhaantiiba meel kasta oo naga daawanaysaan halkani waa SDN ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu diiradda ku saari doono doorashada ka socota deegaanka Tigray ee dhaca waqooyiga dalka Itoobiya. Maamulka deegaanka ayaa ku dhawaaqay inuu qabani doono doorashada deegaanka isla markaana uusan aqoonsanin aqbalaynin dib u dhigista doorashada guud ee dalka dib loo dhigay. su'aalo badan ayaa dadku isweydiinayaan dad fara badani waxaad moodaa inay aad isula dhex marayaan ama ay aaminsan yihiin in qoomiyadda Tigray ay tahay mid u taagan ama u dadaalaysa sida ay uga go'dahay dalka Itoobiya. Qoomiyadani ma waxay rabtaa inay ka go'do Itoobiya mise waxaa jira muran siyaasadeed kale oo keenay in dowladda dhexe ee dalka Itoobiya iyo qoomiyadani ay isgafaan. Haddaba qoomiyadda Tigray way ka bedelan tahay qoomiyadaha kale ee kacdoonka ka wada dalka Itoobiya oo qolo walba ay xaaranayso wax iyada markaa gaar u ah idanaheeda ay ka aragto. Qoomiyadaha qaar waxay rabaan inay hantaan oo xajistaan powerka dalka oo ay gacanta ku hayaan halka qoomiyadaha qaar ay cidhiidhsanayaan doonayaan in powerka la qaybiyo iyo xoogga iyo maamulka iyo awoodda dalka. qoomiyadda Oromada oo iyada aad u fara badan ayaa waxay ka mid tahay qoomiyadaha cidhiidhsanaya in ay awoodda dalka ay saameyn guud ku yeeshaan iyaga oo khibrad dheer ka qaadanaya xukuumadii dheera ay soo daba bedelay ee ka imanaya qoomiyadda Xabashida iyo 30 sano ugu dambeysay ee dalka maamulaysa qoomiyadda Tigray. Haddaba maxaa keenay murankan ugu adag ee xoogga badan ee dhex yaala doorashadan deegaanka Tigray lagu qabanayo iyo dowladda dhexe oo qarka u saarmay dagaal gacan ka hadala ilaa haddana khatarihiisa wata. ugu horreynba 9kii bisha ayaa loo dareeray doorashada codaynta waxaana ka soo qayb galay xubno ka socda dalalka dibadda ama international community kuwaas oo la soconaya habsami u socodka ay doorashadani ku socoto. maxaa keenay inay ka qayb galaan international community sidoo kale waxaa ku sugan saxaafadaha waaweyn ee dunida caanka ka ah oo iyagu tabinaya sida ay wax u socdaan. maxaa sabab u ah golaha federationka ee dalka Itoobiya ayaa ka fadhiistay doorashada 2 maalmood ka hor intii aanan loo dareerin wuxuuna soo saaray in aanan la aqoonsan doonin natiijada doorashadaas. haddaba sidee bay noqon doontaa ama la isku qabansiin doonaa maxayse tahay interestiga ama danaynta ay international community ay ka leeyihiin qoomiyaddan doorashadeeda ee dalka gudihiisa ah. waa hagaag marka ugu horeysa qoomiyaddan Tigray waxay isku raacsan tahay ama majority-geedu uu isku raacay axsaabta dalkaas ka jira ama deegaanka ka jira in la qabto doorashadii deegaanka isla markaana la soo dhiso xubnihii u matali lahaa golaha baarlamaanka ama federaalka ee qoomiyaddaas isla markaana halkaas ay kala ambaqaadi lahaayeen dowladda Itoobiya ee markaa jirta waxayna arrintaasi carqalad iyo dhibaato ay ku tahay dib u dhigista doorashada dalka iyo qabsoomidda doorashada muddooyinka fooda inagu soo haya. waa hagaag markaa sababka ugu weyn ee keenaysa dhibaatadan qoomiyadda Tigray waxaa abaabulka doorashooyinka iska leh xisbiga TPLF Tigray People's Liberation Front oo asagu xisbigii qaybta ka ahaa rididii xukunkii dhargidii 1991 isla markaana ah xisbigii talada dalka soo hayay 30 sano ugu dambeysay. waa hagaag si marka aad u fahanto ujeedada dhabta ee ka dambaysa doorashadan iyo murankan ka aloosmay ee u dhaxeeya qoomiyadda Tigray iyo dowladda dhexe Itoobiya waa sida tan. dalka Itoobiya waxaa ka jira 49 xisbi siyaasadeed oo dhammaantood ay sharci yihiin haystaana waraaqda ogolaanshaha ee xisbinimada waxayna u qaybsan yihiin 3 qaybood. 30 ka mid ah waxaa la yiraahdaa regional parties ama axsaab deegaameed waxayna u taagan yihiin in ay ku tartamaan oo ay noqdaan xisbiga hogaamiye deegaanka qoomiyaddaasi. sida aynu la socono Itoobiya waa 9 kilil iyo waliba kuwa kale oo xilligan xaariga ah dabka saaran. sida oo kale waa 70 iyo abaaf luuqadood ayay ku hadlaan waxayna ku dhow yihiin 80 qowmiyadood 114 milyan ayaa lagu qiyaasaa dalkaas. haddaba 49 ka xisbi ee dalka ka jira 30 ka midi waxay matalaan qowmiyaadka waxaana la yiraahdaa regional parties. Oromo Federation Congress, Southern Ethiopian People's Democratic Coalition, All Amhara People's Organization, Oromo Liberation National Party,
Anfar Revolutionary Democratic Unity Front, Oromo Federalism Democratic Movement, SECO and Mazenga People's Democratic Unity Organization, Angoba Nationality Democratic Organization, National Movement of Ahmara, Ogaden National Liberation Front ONLF, Front for Independent Oromia, Anfar Liberation Front, Anfar People's Democratic Movement, Menchi People Democratic Organization, Ethiopian Berta People's Democratic Organization, Gema People Movement for Democracy and Justice, Ethiopian People's Patriotic Front, Gada System Advancement Party, Gedeo People's Revolutionary Democratic Front, Guraga National Democratic Movement, Hadia National Democratic Organization, Harari People's Democratic Party, Kafa Saka People's Democratic Organization, Kambata Alaba and Tembero People's Democratic Organization, Konso People's Democratic Unit, Oromo Liberation Front, Sidama Liberation Movement, Sidama People's Democratic Organization, Celti People's Democratic Unity Party, South Omo People's Democratic Movement, Walaita, Goma, Gofa, Doro, and Konga People's Democratic Organization. waa soddonka xisbi ee iyaga loo yaqaano regional parties ee u taagan deegaamadooda. qaybta ugu dambaysa waa labadan xisbi ee dalka taladiisa haya ama ku lultamaya. waa TPLF oo ka soo jeeda qoomiyadda Tigreega 27 sano ugu dambeysayna majaraha u hayay dalka Ethiopia. 30 sano ee kasii horeysayna halgan hubaysan oo xabad ah kula jiray xukuumadii Ethiopia. qayrada kalena waa PP ama Prosperity Party oo cusub lagana dhambalay oo lagu bedelay bahweyntii EPRDF, Ethiopian People's Democratic Party. wahagaag si marka aynu muranka u fahanno iyo ujeedada dhabta ee ka jirta ee u dhaxaysa dawladda dhexe iyo xisbigan TPLF ama qoomiyadda Tigreega ayaa salka waxay ku haysaa kulooltanka awoodda dalka Ethiopia. haddaba xisbigani waxaa u muuqda in ay jaanis weyn ay u tahay bedelidda bahweyntii ballaadhnayd ee EPRDF laguna bedelay PP oo wata shuruucdiisii iyo constitutionkiisii cusba isla markaana u baahan in la suuq geeyo si ay taa uga faa'iidaystaan maadaama labadan xisbi ee TPLF iyo PP kaliya ay yihiin parliamentary parties. waa labada xisbi ee ku tartamaya awoodda dalka iyo hoggaanka inay gacanta ku dhigaan. kolba labadan xisbi koodii majority seat ka fadhiista baarlamaanka ay parliamentary ayaa waxay soo magacaabayaan executive-ka dalka uu leeyahay iyo waliba ra'iisul wasaaraha oo toos uga imanaya xisbigaas. waxaa sahlan markaas in xisbigaasi uu handal gareeyo dhammaanba dalka guud ee Ethiopia. haddaba xisbigan TPLF wuxuu abaabul adag u galay in uu qoomiyadiisa ka dhaadhiciyo inaanan loo hoggaansamin dib u dhigista doorashada. faa'iida ugu weyn ugu jirtana waa in xisbiga PP aan la siinin waqti uu isku soo dhiso ama uu ku xoogaysto ayna taana kaga faa'iidaystaan. xisbiga laftiisa ayaa doorashada dib u dhigisteeda wuxuu ka dhigayaa in uu ku xoogaysto coalition uu kaga raadiyo 17 xisbi ee kale ee national level ama national parties. hardanka iyo murankaas ayay dawladdu marka waxay qaadatay laba option oo ah in doorashada la qabanayo natiijadeeda aan la aqoonsanin oo laba faa'iido ay dawladdu ka sugaysa midun inay ku dhurto. inay TPLF soo baxdo oo markaa negative loo isticmaalay inaan la aqoonsanin wax ka dhalan doonaba. iyo in axsaabtan kale ay kiciyeen ay ku soo baxaan oo kuwaasi marka ay u hoggaansamaan inay doorashada dalka ka qayb galaan. dhanka kale xisbiga TPLF ayaa ku dadaalaya ama soo saaray qabashada doorashadan majority-na ku helay in doorashadan la qabto waxaana kula tartamahaya 4 xisbi oo kale. sida oo kale waxaa jira 3 xisbi oo kale oo dawladdu ay samaysay oo matala qoomiyadda Tigreega oo ku sugan magaalada Addis Ababa
diidanna doorashada ka socota deegaankaas. TPLF ma inay go'day rabtaa mise inay dalka hogaamisa? TPLF boqolkiiba boqol inay dalka hogaamisa mar kalena ay xukunka gacanta ku dhigto ayaa u socota. deegaanka Tigray waxaa ka jira hal xisbi oo isagu u taagan inuu ka go'o dalka Ethiopia. xisbigaas ilaa iyo halgankii lagu soo jiray ee dargida lagula dagaalamayay iyo ilaa xilligii TPLF ay dalka haysatay intaba wuxuu u taagnaa gooni u istaaga dadka reer Tigray. xisbigana waxaa la yiraahdaa Tigray Independent Party, waana xisbiga kaliya ee u taagan hadduu dalka gacanta ku dhiga deegaankaas inuu qodobka 39aad oo markaba miiska saarayo gacanka hadal dagaal iyo halgan hubaysanna uu Ethiopia la gelayo xoogna uu kaga go'ayo. markii laga soo taga halka xisbi afarta xisbi oo kale oo ugu horeysa TPLF dhammaantood waxay u socdaan inay dalka hogaamiyaan gacantana ku dhigaan. waxaa sidoo kale jira 3 xisbi oo kale oo midi uu ka imanayo 2 gobol oo ku taala 2 degmo oo ku taala deegaanka Tigray oo ay ka soo jeedaan dad u dhashay qoomiyadda Xabashida isla markaana dhul ahaan degan ama dhaca gudaha qoomiyadda Tigray. xisbigaas ayaa isagu Addis Ababa fadhi ka dhigtay oo diiday inuu ka qayb galo doorashada dalkaas. sida oo kale TDP baa jira oo asaguna kula midoobay OFC Oromo Federalism Congress oo asaguna diidan in qoomiyadda Tigray ay doorasho qabsato. dhanka kale Arena Party ayaa jira asaguna oo diidan oo fadhigiisu uu Addis Ababa yahay. isku soo duuduubo ujeedada doorashadan ayaa ah labada xisbi ee talada dalka gacanta ku haya ee labaduba ay yihiin Parliamentary Party waa TPLF iyo PP oo dhawaan la sameeyay in aynan ku simin TPLF in PP ay yeelato waqti ka badan xilligii loogu talagalay doorashada ku meel gaarka isla markaana ay soo xoogaystaan ayaga oo ka faa'iideysanaya 17 xisbi ee national level-ka ah oo ay coalition la galaan markaana ay gacanta ku dhigaan siidka ugu badan ee baarlamaanka. halkaas ayay taalaa shaxda iyo hardanku. dagaal Ethiopia gudaheeda ka qarxa u dhaxeeya qoomiyadda Tigray iyo waliba dalka guud ee Ethiopia aad bay u adag tahay. qoomiyadda Tigray oo ka go'da Ethiopia aad bay u adag tahay. xogta iyo xaqiiqooyinka dhabta ayaa tabta ku fadhiya. international community-gu marka maxay ka qabanayaan oo u soo yimaadeen bartan? qoomiyadda Tigray xisbigan maanta talada haya deegaankaas ee talka Ethiopia taladiisana haya. xisbigaasi mid ma aha la yaraysan karo ama la dhayalsan karo. waxayna u sacinayaan inay dalka Ethiopia gacanta ku dhigaan ay hogaamiyaan. international community-gu haddii ay sidan ku socoto TPLF ayada oo badbaadinaysa midnimada iyo wadajirka dalka Ethiopia waxay xaq u yeelanayaan inay siidka ugu badan la yimaadaan xilligii doorashada loogu qabtayna ay qabteen isla markaana aanan dalka fadqalali iyo colaadi aynan ka dhicin inay u taagnaadaan. Abiy Ahmed waa inuu keeno reasonable ama sababa sax oo la qaadan karo macquul ah oo doorashada dib loogu dhigi karo markii laga soo tago xanuunkan COVID-19 oo wadamo badan intuu jiray ay doorasho galeen. ugu dambeyntii qoomiyadda ayaa shaacisay in lagu dhawaaqi doono doorashada natiijadeeda 13 bisha September ee aynu ku guda jirno dhowr maalmood kadib. hadduu Ilaahay yiraahdo waxaynu halka kala socon doonaa xaaladda dalka Ethiopia iyo waliba waxa ka soo kordha doorashooyinka iyo xilliga natiijada. inta ka horeysa waa anigu Cabdiraxmaan oo idin leh sida iyo nabadgelyo.